قرآن كان إمسو كشيكي يعني وحيابها يعني دنبقة أو الإسجدي وحاكمت أو عرب كانوا سمايو أما سفع إلى الله سمايو وعلى هذا الاستهزاء والسخرية إنه يسكت جاسو أو عمل إسياسو وإلهي وحولها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يعني هاسكو جيسنا جيسكم مركا يعني وقفكي أو أما قفك هذا الحن أو تحقير وكجرو أما أفلقاده وكجرو كهلا وحاليا يا القفك أسكاله يا قفك أساس وكجر جيسايو إنه قفك أسكفي عنيه يعني أو إلهي أكتسو خاقي بدنيه مركا إن آدي أرمها سي يعني أي أنو إلى علينا هذا يجي لما مرمان ويهين أفوي كمركا أوليه هاي وحاكمت يعني دتك لحظة أيا وحوك سمايا لسانكو فساد أيوك سمايا سيد اللي نقول أجانا والدين تينو أين فرع سنة إلهي سبحانه وتعالى وحنا ليه وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم أدوما يقول حد كتير هذا بهذا كوكفي عن هاي اسمهن آية الله وحكوله وقولوا للناس حسنا ضدك ورك ونكسن لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكوله والكلمة الطيبة صدق كلمة ونكسن أجر لجه الآيات مركل لبضع أساس جرب سعودة إن قفك ونقض قف حماتك الشقية وعرب كيسة عن كنترولين أو وحول الرب إسكت هاي يجي يوقف كنترولين ضدك أو حماتها يعني إسكيل عليني يعني عرب كوذا ما كدم وحول نقنايا وحول لقب سنايا هذا الكحن مركز أساسه حتى إسكت إنه إسرائيليو يهذا الحن هايا مركز الأول محاسة أو ترينا وحوليه هاي وإقفة كذا وركاس ورعن كنت لقلي موسى أهين مركز يعني كعقفة كان كرا ولماذا إنه مركز كهاللايان يعني هذا الكلوه اللايو سيدا اللي يقول بهيا إلا كنترول وحيده وحول مدي هاي سيدا مالك أديك على هيستوه كله هذا سوق سوق أدو العق أدو ذاتيب العق تاسي سيدا أي كعقب بحيسو أما يكون رافيسو si oo aadan u kasaynin ma ah wax ku anfacaya ayaad ku gadanaysaa waliba shayga aad gadanayso markii lagu yiraahdo mesela intaas ayuu joogaa waxaad isku dayaysaa inaad wax ka dhinto oo intii in ka yar aad ku iibsato si lacagtaada intii aad haysan karto ama aad baaqi yeelan karto aad u baaqi yeelato marka ugu dambaysa meeshii lagu dhaafi waayo ya adiga oo jeclaan lahaa waliba intaas inay ka sii yaraato ayaad bixinaysaa hadalkuna waa saas oo kale leeyahay waxa intaadan hadlin ka hor ayaa waxaad fiirinaysaa hadalkan aad dhihi doonto wax ma ku goynaayaa horta oo ilaahay agtiisa wax ma kaaga goynaayaa yani ajir ma lagaaga qoraayaa hadaad ku hadasho marka hadaad fiiriso tiraada ajir waa la iiga qoraayaa oo war fiican aad soo wadid ku dhawaaq oo dheh oo waxaad tiraahdaa dadku walaalaha noqdeen hal la heshiiyo qaraabada hal la xiriiriyo hadalka markaad tiraahdid oo ku dhawaaqday waxbuu ku goynaa ajir lagaaga qoraayaa dhanka kale hadaad ku hadasho haddaad og tahay inuu dembi kaa soo gaaraayo oo mesela qof aad rabtaa inaad wax ka sheegto ama aad caydo oo shaytaan uu kugu waswaasiyo hebel wax ka sheego ku yiri waa inay maskaxdaada ku sheegtaa haddaad hadalkaas ku dhawaaqid miisaankaaga xagga dembiga ayuu galayaa saas daraadeed lacagtaadiiba oo hadday ataa kaa khasaartay aad soo gudi kartay wax aan ku anfacaynin maadan ku gadanaynin warkaagana wax aan wax ku taraynin ha ku gadanin oo ha dhihin oo ka joog wuxuu la mid yahay wax aadan rabin oo gadanaysid marka xoolahaba waxaadan rabin kuma aadan gadanaynin warka waxaan wax ku taraynin ha dhihin hadii uu imaado mid u dhaxaysa tirab mutaraddid ah hadaa tiraahdo wax weyn oo ajir kama muuqdo hadaa tiraahdo dambi kama muuqdo waa war iska caadi ah warkaas geebaan u ridnaa waxaan u ridaynaa leeyahay iska dhaaf haduuna waxba kugu fadhinin iska dhaaf waa intaas oo kula sii galo wax aan fiicnayn saas daraadeed waxyaabaha aafatul lisaanka waxa kamid ah wax qofka aan waxba u taraynin inuu dhax galo oo xadiidku waa tii aha min husni islaamil mar'i tarku ma la yaani wax ma la yaani inuu isaga taga ayaa u fiican oo uusan dhax gelin waxyaabaha aafatul lisaanka uu keen waxa kamid ah wax la yiraahdo al khawd fi al baadil baadilka in la dhax dabaasho waana midka maanta inoogu daran al khawd fi al baadil Soomaalidana waxay u bixiyeen fadhi ku diray u bixiyeen waxay yiraahdaan kaale halkaas aan ku soo fadhi ku diraynaay ama fadhi ku dirkan ka qayb galaynaay maxaa laga sheekaynayaa quraan lama akhrinaayo wax kale lama sheegaayo waxa la yiraahdaa bas qiila wa qaala maxaa la sheegay maxaa la yiri say noqotay taasoo kale waxa la al khawd fi al baadil
wax baadil ah oo dembi ah in la dhex dabaasho waa dhibaatada uu carabka u keeno dadka naarta gala maxaa naarta ku gasheen markii la weydiiyo jawaabta ay bixinayaan waxaa ka mid ah maa salakakum fii saqar saqara maxaa idin geliyey qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nudcimu almiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin qaybta waa marka aafatu lisaanku wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa dabaalanaya ayaan dabaash yani baadilka ayaan la dhex dabaalan jirnay marka hadda soo lama joogo oo isma sheegin haddaba si aadan naarta u gelin ha dhex dabaalan baadilka wixii baadil ah oo meel lagu haayo dadka oo wanaagsan oo cibaadurraxmaanka ah tilmaamahooda waxaa ka mid ah wa idaa marruu bilagwi marruu kiraama haddii ay meel xumaan lagu haayo oo aan fiicnayn ay soo maraan si sharaf leh uga gudbaayaan ee intay dhex fadhiistaan wixii xumaa ma dhex gelayaan dadka ahlu khayrka ahna fadhi ku dirir waqti uma haayaan maxaa yeelay waxa dadka sugaaya ayaa ka badan saas loo yiraahdo alwaajibaatu aktharu min alawqaat waajibaadka ina saaran ayaa ka badan waqti aan haysano dadka qaarkii waxa joogaanba waqtiba meel ay ku buuxiyaan male fadhi ku dirkan ku dhameynayna waqtigooda soo imaarayseen bay garan waayeen baadilkii ayay dhex dabaasheen marka in aad iyo aad isaga ilaaliyo yani waxa ka mid ah hadalka xun oo lacanada in la badiyo oo lacanad baa kugu taalay ama lacanad baa abaha ku taalay iyo waxaasoo dhan hadalka afku ma loo goostaa si gaar ah haweenka ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uga digay lacanada oo la badiyo oo yani wax laga sheega dadka oo waxay ahayd xadiidkii ah markii uu maalinta ciida ah uu gabdhaha wacdiyay wuxuu ku yiri yani wax sadaqaysta naarta ay haweenku u badan yihiin gabar baa istaagtay oo rasuulka ilaahay sababtu maxay tahay laana diinteennu waa diin in wax la fahmo rabta si wixii la isaga ilaaliyo wixii aad fahamtay aad iska jiri kartaa laakiin wixii aadan fahmin hadaad ka aamusto hadhow si aad isaga ilaaliso ma taqaanid marka waxay gabadhaasi rabtay inay ummadda u cadayso gabdhaha inay u cadayso si gaar ah si ay isaga ilaaliyaan waxa ay ku mutaysteen naarta markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri lacanada ayaad badisaan lacanad badinta macnaha afkiina ayaa inta badan waxa ka soo baxaya lacanad iyo hadal aan fiicnayn taasna waxa dhici karta gabdhaha ayagoo aan ula jeedin xumaan xataa in uu carabkooda isaga badanayaan na Allah kugu taala iyo na Allah saana tahay iyo wax saas oo kala marka wa takfurna al-la'nadaas in iska ilaalin koow iyo cashiirka ama zawjka oo waxa la isna lagu kufriyo yani ihsaankiisa aan la qadarinin oo xuquuqdiisa aan la ilaalinin bimaana labadaas arimood hadaad iska ilaalisaan uma badnaanaysiin ma naarta waxa loogu badan yahay jinsiga ama nooca ma aha ilaahay agtiisa labka iyo dhadigu waxay ku kala duwan yihiin male qof kasta wuxuu shaqaystuu leeyahay waxa lagu kala fiican yahay oo kaliya inna akramakum indallahi atqaakum alla ka cabsiga marka saasana jinsi gaar ah oo sidiisa asaga ma ahane waa ficil waxa naarta lagu galaayo ma aha abtirna ma aha nooc iyo meesha laga soo jeedana ma aha marka taasna yani la iska ilaaliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka nafiyay qofka mu'minka ah nabigu wuxuu yiri ma aha mid oo wax lacanada ma aha mid faaxish ku hadla ma aha badii'ul lisaan arab xun ma aha qofka mu'minka ah waa qof wanaagsan oo khayr waligi afkiisa ku haya nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaahay maalinta aakhira rumaysan ama war wanaagsan ha yiraahdo ama ha iska aamuso bimaana haduu war wanaagsan yiraahdana ajra loo qoraaya haduu iska aamusana dambi looma qoraayo aamusnaantaas ayaa sidaas ah haddii qof uu kugu xadgudbo oo carabkiisa uu ilaalin waayo oo uu ku caayo waxaa fiican sida wanaagsan inaadan soo kala noqonin oo aad ka aamustid oo aadan ku dayanin saas imaamkeen imaam shaafici wuxuu yiri idaa nataqa safiihu fala tujibhu qofka wax magaradka ah haddii uu iska dhawaaqo oo hadal xun uu ku yiraahdo fala tujibhu haba u jawaabinba isaga aamus maxaa yeelay fa khayru ijaabatihi as-sukuutu jawaabta la bixiyo mid ugu fiicani waa in la aamuso bimaana qofkan safiiga ah asagu wuxuu rabaa inaad la qayliso oo isku mid aad noqotaan haddaad ka aamuso waad ka raysay waad ogtihiin faa'iido laga helayo qof wax ka sheegay oo laga aamuso faa'iidada waxa kamid ah waxaad ogtihiin Hamza bin Abdul Muttalib sayyid ash-shuhada wuxuu ku soo islaamay Abu Jahl ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u imaaday isoo meel iska fadhiya markaasuu cay ka buuxiyay suu caynay nabiga sallallahu alayhi wasallam lam yarud muuna u jawaabin wuu caytamay wuu waday nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu isaga aamusay inagana nabiga ku dayanayna qofka safiiga ah haduu caytamo waxba shib isaga dheh markuu ka aamusay oo waday yu Abu Jahl iska tagay gabar meesha joogtay Hamza oo markaas imaaday iyay u sheegtay waxay tiri arintaas maanta meesha ka dhacday intuu xanaaqay ayuu ka daba tagay Abu Jahl
بمعنى وحاد أسامي روح وحلاقة شيء أو لقى شيء وهذا إسكا عاموسن أو عن وحبة دهينين مركب مظلوم كإن الجرب يستاجو ومروءة ورجنمه وضدنمه أنتوا تجي وقانسوه وتمضح كله في أبو جهل يا وحكوري أتسبه وأنا على ديني موحد عين يسا أنا والدين تيسو كجرا مركو ركومون جري لكن موقف كان أياك كان إنه دين توصاقله مركو يعني مركو قف وناكسن ياهم وأوصل الجواب إنه قف حماتنا سمينا يا سوكل عن الله نقنين مرة وحكرنا شاء التربية وناكسنه وحتى قف حماتنا وذي أيام مركو دم يسكو حشونايا لكن هذا لقات قادو يعني اسكو ميدان نقونيسين أدنو أصلو كعينايا أدنو عينيسا أصلو كسو عينايا أدنو كده بجينيسا ضد اسكو ميدان نقونيسان مركو حال ربا ضد كسوف هذا أما واحد مجرد كعب إنهم وحبب اللي قدر سنين بقى أضيع عي تمان يدي وحشيجان سيدون أيجا هينا أيجا الدنبابة أيجا اللوقرايا قف كان يعني وحلاقي شيء جاينا حسنات كقف كان صدوب حسنات ليه هاي أسأل الله سوري جندونا هدوسنا حسنات لهينا دم بيجا قف كان لعاي أما وحلاقي شيء جاي آموسي يا أنت لقى قاعد دم بيجيسا يا كي عاي أما وحكي شيء جاي أيا كرك لقى سارايا وأنا تحديثك أتكو أركتين حديثك أدها تدرون من المفلس قف وحلا أنت أما تقانان مركز سيدنا وحنون قانا قف عن وحبه هيسن الدون شلنا هيسن علابنا هيسن وحبنا هيسن مركز النبي حول ما يساس ماه وقفت صلاة يصون يصدق الله إيمانا يا لكن وحو إيمانا يا سو قفنا قذفي قف قراعي قف بيجي سدادي قف دلي مركز قف والبو وحكي سمي حسنات كيسي أي لوجوينا يا هذه حسنات كيسو أيضا ماذا أسوق aan wixii aan wali wax sii dhimayn wala soo qaadaya korka laga saaraya marka yaani dad waxa jira marka yaani dad kale u shaqeynaayo salaada aad tukanayso soonka aad soomaysid waxa soo dhan hadaad arabkaaga ilaashan weeyid yaani waa lagu qoray laakiin dhinaca kale ma ka sii baabiisay waxaan ku soo gaweynay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa loo sheegay haweeney cibaado badan oo aad u cibaadaysata laakiin dariskeeda أي عرب كذا كل بتاع لكن حق عبادة ويكون في عنتها ويتوكتا صلاة هذا يصوم كذا ويفي عنتها لكن مشكلة هذا عرب كذا أي درس كل بتاع نبي حوري لا خير فيها فهي في النار خير مال النار تيجلسان أو صلاة دي مركا أو صومكي ولا قالوا وريجايا ده كلام شقين إنسان مركا عن استدلالنا هاي ضمانتين عرب كان عن حفظ السنة هذا لو إنسان أنكو هذا لنا وحن واردية كان هاي حسناتك عن شقيسنا إن الدنيا أنت أنجونا عبادة الله أن عابدينه وعارنا إننا إن قاضنا أو منافعات سنة مربنا إن ذاتك لا أن أشقينه أو وحي عن شقيسنا ذاتك لا أي قاتان هدونا منع الله أن كسر دعنا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر ينا استقامة جود أهل إنه سيو استقامة اللسان إلهي إنه نسيو ذاتك وحمجرد كأسفه هذا أنا إلهي إنه أخلاق وهجا جيو إسكت دايان هذا كنا يكون الله يان ذاتك هذا كون أكسن هاينا إلهي إنه أفضل إنه أمد جاران أو ضمان أمد ودن خير كأكوذ شقيسه وما سنتين انت سينها يا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.